shirka booliska ayaa Soomaaliya qayb ka ahayd oo lagu soo gabagabeeyay dalka Hindiya. Wareena Saada Sayid ayaa idin faafahinaysa. wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu kamid yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyo Guud Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka qayb galay meertada 9aad ee shirweynaha booliska caalamiga ah ee Interpol oo lagu soo gabagabeeyay magaalada New Delhi ee dalka India. shirka oo socday 18 ilaa 21 bishan Oktoobar ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 165 dal waxaana diiradda lagu saaray ka hortagga dambiyada maaliyadeed ee caalamiga ah, wax ka qabashada burcadda internetka, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga dambiyada isaga gudba xuduudaha, ka hortagga xadgudubyada loo geysto carruurta iyo arrimo kale, iyada oo inta uu socday lagu dhisay guddiyo kala duwan oo ka shaqeynaya arrimahaas. wasiirka wasaaradda amniga gudaha Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay muddo dheer xubin firfircoon ka ahayd Interpol burburkii kadibna ay dib ugu biireen sanadkii 2012 ilaa 2013 isaga oo xusay in shirka aad loogu falanqeeyay iskaashi laga yeesho la dagaalanka argagixisada iyo wadaagga macluumaadka ku saabsan dambiyada caalamiga ah. dowladda Soomaaliya ayaa door muuqda ka ciyaartay dadaalada xasilinta iyo ka shaqeynta dawlad wanaaga, waxayna si firfircooneed uga dhex muuqatay hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee ay ka mid tahay